بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي برنامج كيني فكرة يفعله متى هاي قف والبا وقتي وكوات كاضو إنه معمله متى هاي قف أرضي متى هاي قف مشروع قعنتكو هيا متى هاي قف معمولة ما أنت وحنجي على هاي إن أن كل ذاقو لابو فكرة دود وكاعونية سيدا وقتي عاد أقرشيسان لهيد sida waqtiga aad u nidaamsan lahayd sida waqtiga aad u maamulan lahayd fikradda ugu horeysa waxa weeyaan inaad hesho ama isku daydo inaad barato waqtiga la yiraahdo peak time maxaa laga wadaa qof walba oo bani aadam ah waxa uu leeyahay waqtiyada kamid ah 24 saac oo Ilaahay uu siiyay waqtiga uu wax soo saarka badan yahay waqtiga uu firfircoon yahay waqtiga tamartiisa iyo soo jeedkiisa aad u fiican yihiin waqtigaas waxa uu noqon karaa subaxii waxa uu noqon karaa habeenkii dad subaxii soo kaca jira oo morning people la yiraahdo dad la yiraahdo night owls jira oo habeenkii soo jeeda dad dhuhradii soo jeeda ayaa jira peak time macnaha laga wado waxa weeyaan inaad hesho waqtiga aad energy-gaaga uu soo jeedo alarti aad tahay oo yaani nafsadaada ay soo jeedo waqtigaas waxa loo baahan yahay inaad uga faa'iideysato waxaagii ugu muhiimsanaa wax soo saarkaaga ugu muhiimsanaa wax qabadkaaga ugu muhiimsanaa wixii aad qaban lahayd inaad waqtigaas qabatid fikradan dad badan ayaa ku dhaqma laakiin marka ugu horeyso inaad heshid soo jeeday waqtiga aad ugu fiican tahay oo peak time-kaaga uu yahay sida aan ku sheegay waqtiyada ama wuxuu noqon karaa subaxii ama habeenkii ama dhuhurkii waqti ayuu noqon karaa fikradaas waa fikradda labaad oo aan rabo inaan kula wadaago oo waqtiga kugu qorsheyn karta kugu nidaamin karta waxa weeyaan inaad yeelato ama time blocking inaad yeelato oo yaani waxa laga wadaa in aad waqtiyada markaad subaxii soo kacdo ama dhuhurkii ama galabtii waqtiga aad shaqaysanaysid wixii hawl ah oo markaas waxa weeyaan islahaan kara hadii noqon lahayd inaad emailo dirto waqtigaas 30 daqiiqo oo soo socdo in aad u jaangoyso ama saacada soo socota u jaangoyso inaad email dirto time blocking ayaa la yiraahdaa saacadaas kaliya waxa iska leh inaad emailo dirto saacada ku xigta waxa iska leh inaad koolashii amisgareysay ama ku soo wacay inaad wacdo oo aad ku celiso saacadaas kaliya waxa uu tala gashay inaad wax kala qabanin laakiin shaqadaas iyada aad qabato saacada ku xigta iyada sidoo kale waxaad ugu tala gashay ka soo qaad inaad meeting gasho meetinadaada ama isku xigaan ama 2 saac ka dhigo ama 3 saac ka dhigo time blocking ayaa ku socotaa time-ka waa block gareysay marka labadan fikradood nidaamka ama idea ka dambaysa ama fikradda ka dambaysa inaan idin la wadaago waxa weeyaan dad badan ayaa isoo weydiiyay qaabka ay u qorsheysan lahaayeen ama ay u nidaamsan lahaayeen ama ay u maamulan lahaayeen waqtiyadooda waxaan jeclahay fikradan inay wax kugu kordhisay wixii su'aal ah ama falanqeyn ah waa xaqiina waxaan ka tagayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh